عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرتك soo dhawaada suuqa saamiyada iyo maanta waa maalin December 2020 suuqa waxaan manage ka ahay 177 inkastoo aan saacadii ugu dambeysay $4,000 manage ka ahaa oo aan ilaahay iga soo saaray suuqa maanta waxaan gatay shan shirkadood baan gatay saamiyadooda oo ay kala yihiin NAOV waxaa laga leeyahay gobolka New York State $3,570 faa'iido ka suubiyey wuxuuna ka baacmiishaa medical deviceska healthcare sectorka waxaa igu xigay SQBG waa consumer cyclical apparel manufacturing buu sameeyay dharkii waxaa lamid suubiyaa waxaan laga leeyahay New York waxaa igu xigay MACK oo ah asana healthcare technology healthcare sectorka biotechnology waxaan laga leeyahay asana Massachusetts Cambridge Law MACK waxaan ka suubiyey $4,133 waa kii hadda ugu dambeeyay caawiyey oo saacadii ugu dambeysay aan gadanayay okay OMEX baa igu xigay kana dhaho OMEX sectorka waa industries special business service lagu magacaabo Tampa Florida laga leeyahay OMEX waa kan balaaya iga raacda waaye 6,990 oo manage baan ku galay waxaa igu xigay CRIS oo asagana sectorka wuxuu ka mid yahay healthcare-ka waana biotechnology-ga waxaan laga leeyahay Lexington Massachusetts United States currency $1,800 baa iga luntay overall taas waxaan kala tegaya anoo on manage $177 suuqa hadda 10 saacadood ku dhawaad waan joogay maanta maalin aad iyo u dheer bay ahayd ama gadaal inaan anagoo $10,000 manage aan kala tegin laakiin dadaal badan ka bacdi alxamdulillah ilaahay waa garabsi inaan kaga soo baxo manage ku jiray marka khaladka ugu weyn aan sameeyay wuxuu ahaa de suuqa markuu furmay maanta by 9:40 waxay haystay 2,600 wax la jira haystay baa suuqa maanta markuu furmay aniga waxaa dhacday waxaan isiri calculation khaldan baan qaatay oo waxaan isiri maalmihii ugu dambeysay 10,000 ma suubinaysay this another day 2,000 iyo xogaa waa hadda haysataa sidaa daraadeed ku sheelree ka tegin meesha adin taas waxay ka raacay taas waaye maamaadii la jiray maxay mukulaal meeshay maxay mamaa saasaa jiray kolley atin tii ugu dhacda umaleynaya maamada ay kala maqan tahay anyway ku ajarmay waa sigtay loo ka soo baxay laakiin waxaana ii sahlay inaan factor of faa'iido ka helo NAOV-ga oo very cheap stock ah oo $2 ka yar ahaa ma share badan ka gatay laba jeer buu hold noqday midna waa 9:30 49 buu hold noqday waa la joojiyey oo macnaha markuu 49 minutes suuqa furnaa I mean second 49 second markuu suuqa furnaaba waa la xiray oo sarkac baan buu suubiyey haddana markii taas loo furay oo shan waxa la furay 9:35 على 9:35 49 second baa la furay asaga about 50 second ka bacdi 9:36 43 23 second adiga waxa dhihi karaa yes 33 second 34 second ka bacdi mar labaad baa la xiray so labadas jar la xirmay marna waxaan ka suubiyey dib u noqdo adina 100 something ka suubiyey marka koowaad intuu xirnaana waxaan gatay SQBG-ga gatay SQBG-ga waxaan ku gatay 1331 waxaan iskaga gaday $13.67
540 faa'iido ka suubi kaad intuu xirnaa way ka NAOV markuu intuu xirnaa oo aan sugayay in la furo baan 540 suubiyey isla markii la furayna marlabaadka la furayna 600 xoogaan ka faa'iiday waa iska iibiyey so waxaa dhacday haddana waxaan gatay haddana markaan gatay NAOV-ga waxaan ka faa'iiday asagana markii kale marka intaan sugayay marlabaad sugayay baa waxaan ku noqday SQBG-ga 1392 baan ku gatay 1392 cent 9 share oo kuwiga oo waxaan isdhahay oo ordayaa oo kor buu aadayaa just ka gaarsii waana iska gaday wax yar ka bacdi $400 faa'iidaan ka suubiyay asagana waa iska baxay so waxaan dhooray NAOV-gaan dhooray NAOV-ga 1230 baan ka haystay markuu saas ku furmayba waxaan ka faa'iiday adiga 500 abaas 400 xoogaa almost $500 baan ka faa'iiday marka $2610 baa 9:41 AM saacadda New York Time-ka East Coast-ga dhinaca Minnesota waa 8:41 bed so it's very early bed inaa ka baxa baa habooneed marka waa waxaa la jeedaa talo iskuma kaa sheegto waa iga hoos baxday having said that wax badan baan sugay waxaan badan aan sugayna waxaa iga raacday hawshan tan baa iga raacday inaan mataqaanaa aan 4,000 aan galo menis oo 49 aan galo oo MACK soo baxo MACK caawiyo oo halkaas mataqaanaa U-turn dheer soo suubiyo oo aan shaqada ka baxo mataqaanaa very late insha Allah tacaala kan lesson weyn bay ii noqonaysaa in marna aan wixii hore aan kala soo kulmay kuwii hore aan maantana aan ka filanin oo taa mataqaanaa up and down oo very careful aan suubiyo marka waa kaa video qaybtii dambe daawada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa maalin I think red day waaye haddaan jaanis meesha aan ka helin oo hadda istaagaan la dhaho CR MACK hadda aan gataara waa maybe 6,000 or 9,000 shares 4,000 baan down ahay 12 baan gatay 667 baan ku gatay I don't know inuu kan shaqeyn doono because kuwa labadii ugu dambeysa ma aysan shaqeynin so $4,000 baan menisay so far waa November 2nd I mean December 2nd 2020 beba markaan baa igu dambeyn doonto iskaana maalin waxayd interesting day NAOV 3,500 faa'iidaan ka helay SQBG 870 OMEX 6,990 baa minus ka noqday CRIS 1,800 baa minus ka noqday iyo MACK hadda oo 300 minus ka laakiin I'm hoping inaan ka faa'iidi doono kan saan ku qiyaasayo meeshaan wax badan buu ka soo noqday si hadda muuqaalkan ka muuqato also meeshaan so labadaas qaybood iyo weliba meesha tan saddexaas stage waa very critical stage so hadduu saddexdaas midba bar dhaafo kor buu dheereynayaa so my strategy waxa waaye halkaas waa dhaafay MACK waa dhaafay laakiin ma howlgaleen
inaan iska iibin doono rajeynayaa. Waa iska iibiyay 9 kaasa 4,000 baan ahaa minus 8,000 baan ahay. So I still have another chance. Saalku baan gatay, waxaan ku gatay 673. waan iska iibiyey $400. way was qiimaystaas. Oh god. kaasa aan ka hoos baxay baan rajeynayaa 1884. yes 1800 baa still minus ahay. jaaniskan 15,000 oo sheekal aan gatay. boodi doonaa. yes waa boodaya aski iibiya 447 soo ii sheegayo. 12,000 oo sheer baan gatay. maybe saan ugu soo baxaya minuska ku jiro. maybe this is the time. aa gudoomi balaya ka dhacday. laakiin $4,000 oo minus ah wax yar ka hor. so MACK I think this is the hero today. I believe this is my hero. Alright, let's see. waxaan sheegaya waa taasa waan ka hoos baxay haddana. only $500. only $500 minus. only $500 baan hadda ku jiraa minus. so this time ma shaqeynaysa haddana. we see in my I don't know.
laakiin menes baan 4,000 ku jira haddana 510 baa saddexdii stage aan sheegayo waaye waa stagekii ugu dambeeya waaye so this is gonna be a home run maybe this is gonna be a home run 670 684 and 695 iskiibiyey 177 oo menes haya 40,000 oo dollar menes ku jiray maybe saan uga baxa fiican bo menes 177 wow maanta maalin waxayd maalin yaab leh alright السلام عليكم انت شغال uga baxaya waa 3 p.m. almost 10 hour baa meeshaan fadhiyaa 3 p.m. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته have a great day